السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لالي قالي هو السلامي مركله يموقال كله بينما ونكسن سولو هذا أصحابي waxaad rajeynaa in caafimaad qabtaan meel badani daafeed ka joogtaan ilaahay waxaan ka rajeynayaa caafimaad intii xanuunsan ilaahay waxaan ugu rajeynayaa maaragtay inuu caafimaadka intii xanuunsan uu caafimaad siiyo intii caafimaad qabto ilaahay caafimaad u siyaasho intii dhimatay inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala qabriyada u waasiciyo maalmihii khayrka ayaan galnay ilaahay kuu ka faa'iidaysta ha naga dhigo caawa qisaa noo wadaa qisadan aan noo wado waxay qusaydaa yowmul carafa yowmul carafa waa maalin ka mid a maalmahan tobanka beri ee maanta noo bilowday ah laguna soo socda haddii ay mushkilad ku haysato dhib hadduu ku haysto shaqo la'aan hadday ku haysato guur la'aan hadday ku haysato anything wax walba oo maanta gacantaada aan ku jirin oo aad u baahan tahay maalmahan khayr kale dhexdeed uga faa'iidayso 2 sano dambi dhaafkeed ayaa ku jiro sanad tegay iyo sanad soo socda haddii aad quraanka akhrin karto oo quraanka ilaahay uu kuu furo kitaab ka akhrin karto quraanka akhri tasbiixda badi alla bariga badi soon haddaad soomi karto haddii aadan soomi karin maalmahan 10ka 9ka ama 10ka ah 9ka ah iyo ku dhaafin maalinta ugu weyn ee maalinta yowmul carafa ah soo dhawaada qisadan caawa aan noo wado yowmul carafa qusaysaa haddana waa saliga nabiga maasha allah soo dhawaada maxaa sugaysaan gabdhihii asxaabteeda ahaa maasha allah maalinba mid baa qisay la soo wadaagaysa dhammaan dadkeena qisooyin socda waa iyaga dhan hadday qisadaan oo kale kugu dhacday ama haddii qiso kale oo dikir kale aad ka faa'iida aad hayso nala soo wadaag uga faa'iiday walaalahaaga u baahan gabadhan waxay tiri waxaan joogaahay tiri qurbaha inagoo maaragtay yaryar ayaa nala geeyey waalidkeena maasha allah way nagu dadaaleen oo quraankii iyo diintii waa nala baray iskuul ayaan dhiganayay markii aan dhameeyey dugsiga sare ama high schoolka aan dhameeyey waxaan ahaa gabar aad u dadaal badan oo aad u hamilo oo fircoon ayaan ahaa kadibna waxaan aadnay college ayaan galnay aniga iyo asxaabtii aan wax wada baranay qayb ka mid ah college-kii markaan galnay aniga waxaa igu imaaday bay tiri dib u dhac caajis waxbarashadii inaanan rabin in aniga dhan culays iyo wax isaaran yihiin in aanan dadaalaynin ayaan isku arkay bay tiri gabdhihii aan wax wada baranaynay waxay tiri isla soconay iyagu meel fiican bay marayaan anigu laakiin imtixaankii waan ku dhacayaa meel aan maaragtay fiican ma tagayo bilmeter markii hada imtixaanka la galoo kale boqol markii lagu saxaayo ugu yaraan qofka ugu hooseeya ama qofka maaragtay waxaa la rabaa 50% inuu keeno soo maahan 49 48 ayaan keenayaa konton xataa ma gaarsiin karaa ayay tiri aadan u niyad jabay gabdhihii anigoo meel dhex iska jooga waxbarashada hore aan u wadaynin ayay meel fiican gaareen ayay tiri waan ka baxay yacni meeshii oo dhan meel kale ayaan tegay oo wax kale ayaan bartay bay tiri oo yacni wixii markii hore aan baranayay aan ahayn maadaama aan imtixaanka ku dhacayo hore aan u soconaynin aanan dadaalaynin markii aan waxaas kala bartay ayaan waxaan isiri shaqo raadi shaqo dhan waan waaye gabdhihiina intay soo dhammaysteen college-koodii ayay oo nurse ka soo barteen ayay waxay u soo gudbeen inay dhakhtarnimo bartaan inay shaqaystaan inay wax qabsadaan aniga waxay tiri wixii aan bartay oo aan wixii aan gabdhaha la barnay aan ahayn shaqo waan ku waaye shaqo la'aan ayaa igu dhacday bay tiri dabadeed waqtiyo badan aan iska joogay kadib waan guursaday kadib hooyo ayaa noqday shaqo la'aan ayaa igu dhacday problem ayaa igu dhacay yacni muddo kadib ayaan waxaan bilaabay inaan akhriyo saliga nabiga inaan akhriyo saliga nabiga ayaan akhrin jiray bay tiri gaar ahaan ibraahimiyada ayaan akhrin jiray anoo gurigayga iska jooga shaqo ayaan codsanayaa wax iga soo wacaya male wax soo raadina oo shaqaba iga soo wacaya malahan ayay tiri anigoo xaaladaas ku jira oo saliga nabiga waxay akhrista ayaa waxaa la gaaray bay tiri waxaan bartay channelkaaga muddo sanad iyo bar ah ayaan kugu xiranahay bay tiri dhowr mar ayaan waxaan arkay oo xilligan oo kale ay ahayd adiga iyo dad kale oo wanaagsan oo ka hadlaya wanaagga ay leedahay yowmul carafa ama ducooyinka xilliga yowmul carafa la duceysto markaasaan waxaan go'aansaday inaan yowmul carafa aan duceysto oo aysan idhaafin ayaan waxay tiri maaragtay aan go'aansaday bay tiri maalinkaas sagaalaadka ahayd yowmul carafa la joogo ayaan waxay tiri intaan howlihii iska dhameeyey oo wax alla waxaan qaba lahaa iska qabtay ayaan ducadeeda bilaabay bay tiri
صلي النبي كان أقرناي دعاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير وأقرناي صلي النبي كان آدم وبديي بيتري especially maalinkaas markaan dukaday duhurka ilaa markii maqribka habeenkii meel ayaan fadhiyey ilaahay baan baryaayay markaan saliga nabiga aqriyo ibraahimiyada ilaahay baan baryaayay ilaahayow rabbiyow raxmaanow shaqo kheyr qabto isii ilaah waxaan u baahanahay isii wax alla waxaan rabay ilaahay weydiisanayay bay tiri maasha allah aniga waxay tiri run ahaantii noloshayda maalinka ayay bedelantay yowmul carafa markaan waxay tiri aan baryay ilaahay aad aan u ducaystay maantii hore aan fadhiyey aan ducada ku aqrinayay aan saliga nabiga badinayay aad waxay tiri waxyaabo badan baan aqriyay tiri laakiin oo kuma dhahayo hal waxaan aqriyay laakiin waxaan aad u badiyay tiri saliga nabiga gaar ahaan ibraahimiyada markii la dhaafay yowmul carafa iidii markii la dhaafay oo maalmo la joogo ayaa layga soo wacay bay tiri shaqooyinkii aan dalba jiray shaqo ka mid ah oo aad iyo aad u fiican oo aan shaqadaas la heli karin dowladda loo shaqeynayo mushaar aad u fiicanna leh ayaa layga soo wacay markii la soo wacay ay shaqadii aan tagay interview aan galay ayaa laygu yiri interview waad ku baastayo shaqada waad gelaysaa 2 saac oo subaxnimo ayaadna soo gelaysaa hooyo ayaan ahay ilmo ayaan haystaa waxaan isdhahaa 2 saac see u gelee ilmaha yaa iskuulkuu geynaya aabaha wuu shaqeeyaa yaa ilmaha aniga waxay tiri habi markaan imtixaankaas waxay tiri galayay oo interviewga aan galayay saliga nabigaan akhrisanayay wax mushkilada iyo wax baraboleena ma haysan ayay tiri qalbiga waxa iiga jirtay haddii aad ku baastana fiican haddii aad ku baashana laa mushkil wax dhibaato ma laha ayaa qalbiga iiga jirtayo yacni murug iyo stress ma qabin habi deganaan iyo yacni mutmainna ayaan dareemay dikriga markaan akhristay maasha allah waata laysoo ogolaaday oo shaqadii laii ogolaaday oo loogu yiri 2 saac oo subaxnimaad shaqada soo galaysaa ilaa galabtii aad shaqaynaysaa ilmo yar aan haystaa hooyo ayaan ahay hooyaday aabahay wadanka joogeen hooyo ayaan la tashtay hooyo waxay igu tiri hooyo waxbaa ka welwelin anigaa ilmaha kuu hayanaya shaqadaada iska soo qor shaqadaada galbay igu dhahday tiri shaqadii aan bilaabay tiri saligii nabigana waan wataa oo waan akhrisanayaa waan duceysan ilaahay baan baryayaa maalmo yar markaan shaqadii waday ayaa waxaa laygu dhahay waxaa ognahay inaa hooyo tahay oo waa gaali tiri yaa naxariista ilaahay kugu dhahdo ilaahay hadduu ilaahay adiga raalli kaa noqdo ummadiisa iyo ilaahay kuu qasbayaa inaa ilmo haysato waa ognahay shaqada xilligaa rabto imaaw meeshii 2 saac lagaa rabo 3 saac imaan kartaa ama kadib aa imaan kartaa marka ilmahaaga geysato iskuulka marka ilmahaaga soo kala habaysato kadib ayaa imaan kartaa markaasaan adigayta aniga qof muslim aha ahay waa dukadaa meel aan ku dukado ayaan u baahanahay ma dukataa haa okay maasha allah qof fiican ayaa tahay qol ayaa leesiiyey waa gaala ayay tiri qol ayaa leesiiyey bay tiri 2 gabdhood oo muslim ah ayaa meesha ka shaqeeyada anigu meelay ku dukadaan ma aanan garanayn laakiin markaas waxay tiri meel aan ku dukado qol ayaa leesiiyey qolkaas ku duko shaqadana xilligaa rabto imaaw ilmahaaga markaas soo kala jaaraysta imaaw baa laygu dhahay maasha allah maxaan ku helay saliga nabiga dadka waxaad u sheegtaa oo aad u sheegtaa ahay tiri saliga nabiga ibraahimiyada inay laasimaan in ay ku dadaalaan aniga waan iska akhrinayay bay tiri wax aan u xisaabinay meesha waan iska waday waan iska akhrinayay yowmul carafana maaragta maasha allah waan duceystay ha duceystaan ayay tiri yowmul carafadan hadda nagu soo aadani tiri hadduu ilaahay na gaarsiiyo anagoo nabada rajooyin kale oo aan leeyahay baan rabaa maalinkaasna ilaahay weydiisto adiga maxaa kuu diiday maasha allah tabaaraka allah aniga rajaan leeyahay adiga rajo ayaa leedahay yacni gool baa leedahay inaan gaarna ayaan dhammaanteena soo maahan tasbiixda aan bilaawno maanta ayay noo bilaabatay 10 beri waa 10kii beri ilaah subxaana watacaala ku dhaartay walfajr walayaalina cashr ilaahay uu yiri waaye maasha allah 10 beri 10 beri oo aad iyo aad iyo aad u cajiibo waaye runtii maanta 2 sano ka hor aniga waxaan joogay xajka ilaahay wuu ii qadar inaan xajka tago yaa xaajigii khayr allaha siiyo adduunya aakhiro asagaa i geeyey xajka ayaan joogay maalinkaasaan ku dhahay subxaan allah waa maalin aad iyo aad u cajiib ah run ahaantii waana maalmaha sagaalaadka tobnaadka ilaa iyo 11aadka waa maalmaha ugu shaqada badan oo acmaasha xajka la qabto
nabiguna muxuu yiri alxaj yawm alcarafa xajku waa maalinta carafa ayuu dhahay waa maalinta carafa ayuu dhahay xajka ma fahanteen marka maasha Allah tabaarakallah wanaag fara badan iyo naxariis fara badan iyo ilaahay subxaanahu wa ta'aala ciduu doono ayuu horta u dambi dhaafaa ilaahay ciduu doono ayuu xajka ka aqbalaa acmaashana ka aqbalaa laakiin maalinkii tobnaad maalinka isiri bay ahayd allahu akbar walla ilaahay subxaanahu wa ta'aala intaanoo khalqii waxay iskugu imaadeen ilaahay dartiisa ya iyadoo fiiri maanta yawm alcarafa waxaa la joogaa buurta carafa ayaa la joogaa oo meeshaas weligay noloshayda meel ka kulul ma arkin meel ka kulul meeshaas maan arkin waa dhagax sali ah oo dhala ah u maleyso oo qoraxda la dul saaray oo ummadda inta tirada ka badatay mukayf kasta iyo biyo kasta oo meel lagu xiro inuu waxba qaboojinaynin subxaanallah kasoo tag meesha maalinta carafa lagu tago mino ayaa la imaana iyo mustalifa iyo meelahaas cawada la joogaa subaxii waa lasoo tuuranaa subaxii dambe haddana isla markii waxaa la tegaa kacbada waa lasoo dawaafaa haddana mina loo soo hoyanaa wax ka shaqo badan meeshaasayto yaa subxaanallah maalinkii labaad maalinkii tobnaad oo inta habeenkii lagu hoyday maxaa la dhihi jiray mina lagu hoyday subaxii jamaraadka dhagax lasoo tuuranayay haddana waxaa la aadayaa maahu xaramka oo lasoo dawaafaa oo dadka siday shalay nimanka siday maalintan carafa aadaynay u xirteen go'oyaasha cadcad ayay u xiran yihiin dharkii layskama bedeli karo oo ma arkinoo laba go' cadcad ayaa la xiran yahay dumarka waxay rabaanay wataan laakiin ragga laba go' oo cadcad ayay wataan markaas waa lasoo lugeeyey baabuur dee mareeba horta ummadda tiradii ka badatay aniga marka intaan meesha ku qandhaday oo kulaylkii iyo kaarboonkii dadka ee tirada badnaa yacni igu hargab igu dhacay baa naqaska halkaas dhab inuu yidhi umaleysaa meeshaasna hadduu naqasku taabto oo naqas uu kugu dhego in dawo lagula cararo dawo lagu siiyo maahane dadka tirabadidoodaaba naqas kugu dhashinaysa subxaanallah anagoo soconno marka oo xaramka u soconno ayaan ummadda saa u fiirshay ummaddii oo dhan oo socota shiiq iyo shaab nin dhalinyar nin weyn iyo maaragtay maxaa lagu dhahay qof la hadlaayo ma jiro qof kasta tiisa wadato waa la wada tasbiixsanaya meesha loo socdaa xaramka in lasoo dawaafo qoraxda inta dadka samada maana in laga soo jeedshaa umaleysaa dadka ku dhigtay dadka dhan gudguduud noqdeen la carabay u badan yihiin soo maahan aan waxaan dhaha markaan saa ugu jeeda allah sidan oo dhan soo ilaahay raaligelintiisa iyo waajibaadna saara looma yeelayaha ilaa noo dembi dhaaf rabbiyo raxmaano marka walaalahayga qaaliga ilaahay ciddan tigin ha ku irsaaqa meesha aadka u quruxda badan aadka u qiimaha badan mararka qaar qalbigayga ilin yacni indhahay ka imaan jirtaa jirto oo aan waxaan ku khushuucay iyo midna iyo wax kaloon ka nax aan ahayn masaajidka xaramka oo kale maqribadii anaga banaankaan fadhiisan jirnay maqribkii cishahan ku dukan jirna banaanka marka cishaha la dukanaa ama maqribka la dukanayo oo kale waxaa arkay leyr qabow oo caraf wadata caraf ubaa haaf ugu soo dheheysa taas markii aniga iisoo karta caraftaas leyrta markaan dareemo ilina iga imaan jirta waxaas dhihi jiray allah dadka ilaahay meeshan ku beer nasiib badanaa maasha allah tabaarakallah yacni naxariista meeshaas taala subxaanallah ciduu ilaahay doono ayuu ilaahay garansiiyaa tusaaho aw macnaha dareensiiyaa ciduu ilaahay jeclaad ilaahay waa geeyaa ilaahay intuu u qoray waa tegayaan intaan loo qorinna ma tegayaan ilaahay haddaada tegin ha ku geeyo dhammaanteenna ha nagu celcelsho ilaahay meeshaas sharafta iyo wanaagga iyo miiqaamka sare leh qofka jooga maanta waxaa lamida qofka adduunka kala jooga tasbiixsanaya sooman dikriga akrinaya qur-aanka akrinaya wuxuu la mid yahay qofka halkaas taagan ayuu la mid yahay maxaa yeele isaga qofka xagga jooga ma soomana laakiin wuu xajinayaa soo maahan adiga marka waa ma xajinaysid waa sooman tahay waana tasbiixsanaysaa dembiga waa lidin wada dhaafayaa meel kasta mashriq iyo maqrib ama xaj joog ama madiino joog ama maka joog ama soomaaliya ged ugu dambeeya joog ama meel kale joog haddaad tasbiixsanayso aad adkaar akhrisanayso aad ilaahay isu duleynayso aad ilaahay baryayso aad ducadii ku celcelinayso ilaah waa kuu dembi dhaafayaa gabadha marka qisadeeda aadka u cajiibka ah shaqadeedii ku heshay saliga nebiga maalintaas ay akhristay yoomul carafa
ilaahay oo gaaladii loo shaqeynay ugu duleeyay meelay ku dukatay la siiyey shaqada xilligaa rabti ma la dhahay waa adigoo kale waa qof maanta taagan aftinaa qof taagan waaye oo adigoo kale ah marka gabadha waxay ku leedahay maasha allah ha laga faa'iideysto saliga nebiga hana laga faa'iideysto yawmul carafa maalinka maalmihii waa noo dhasheen shalay maanta kow nooga ahayd beri laba ayay noo tahay haddii aadan soomeynin oo maalinka ugu weyn inaad soonta arato tasbiixda quraan akhriska alla bariga afka ku hay oo badi haddaa qalbiga qof wax uga heeso iska cafi qof cafis wax cafiye oo qalbi weyn qalbi nadiif leh noqo walaalihii qaaliga maqaadira meel buu joogtaan habeenimo wanaagsan ilaahay waxaan weydiisanaynaa caafimaad taam inuu na siiyo dhammaantiin inuu naxariisto ayaan rabbiga raxmaanka weydiisanaynaa soo dhawaada maalmahan sheekadu haba ha yaraato maxaa la dhihi jiray teleefon la daawado iyo wax laga jawaabiya la iska daayo istikfaarta aan badsana insha allah dikriga aan badsana hadduu ilaah subxaana watacaala uu qadaro soo dhawaada habeenimo wanaagsan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu